جزاكم الله خير الجزاء علماء وأحسن الله إليكم كلمات كأذو قيمة بدن وحن مر صدح أفراد ربنا شيخ مصطفى دي بوعي اليوم مسألة وحاجة شرتاء إننا قاعدين صومالي هذا اللغة عن كواضع إنه صومالي وي ميل كستون تشوغنو صفات في عمان لنا هاي كوا خطرنا وان كوا في عن وحكم إن القرآن كقد ذله عرورتي إن القرآن كمل عبادها يدكسيد اللي جاي القرآن كالحفظي لكن القرآن كهل حفظه إني معاني دي سي هي التربية دي هي دينتي إنه برت إنها سالو دلال وفي خوف عنك القرآن كالحفظي سين كذبنا وحال الله سيدا يلا ده ومارتي مادي قرآن كليه ولا حفظيه إني مارتي ميلر وسجارين مركز الشيخ مصطفى وحنا بالكلمة ذا موضوع عاص بالكير براروتش إن شاء الله تعالى بالوحير دبها نوود فإن شاء الله تعالى وحن اسكروتيني النقضي كأب أنه كسو جاني وفي عنت إن قرآن كالحفظي لكن وقت وحنا تشوقنا قرآن حفظ كي وسكوه في اللانين ما قاد دبي مسابقات كقاضي ومرايكن كي مادين واستراليا كي مادين وانجليز كي مادين سويدن كي مادين نوروي كتجن هذا ميل قدام بيسان لجرنين لكن هذه الدين تفهمي لهايين حلقيها بلا وحبة بادلة برشا مصطفى كسر وارنت بارك الله فيك تفهم ملاين يا أنا ملا الدكتور كوري كان لا سقافقي في عنه سيكستبه هالنقطة شعب العينين محلي وحي فقه كصابسان كستانو شيخ ومان تشعلين هذا نسيج أنو يمكن مريدون نو كتاب يدوي سيدني مرة نسيج له ويديو قرآن كاين لقيبة مواجبة مسوا سنة يا قرنية قرآن كاين لحفظية مواجبات كي كنت رسنتها بس السنن كي كمت waxaynu ognahay marka waajib laga fakaro waajib kifaa'iya oo deynaan quraanku lumin muslimiintu ay haysaa waa jira laakiin markaynu waajibaadka ayniga ka warrano malaa'inta salaada ku asaxda uma waajiba qofkii tukanayay wixii salaadu kaga asaxaysay inagu ka Soomaaliya ahaan dhaqan fiican baynu leenahay dhaqamada fiican waxa kamid ah quraanka iyo akhriskiisa iyo qaybistiisa iyo subcintiisa iyo كددالكيس ودقن في عن قرآن كوح أجر بدن لجهله ووحاو نبغو تلمامي حروف تين لا يسطرين أيه أجر ككوتشرة وفاتحات ده آخر ده وحلاقيه بفاتحات إلا كون يشام بقوله حرف ويان تكون يشام بقوله حرف بقول يكون تن حرف طبعا مركز تقول فات تكون يشام بقوله أجرين تلي سبعة وبدنت إذن قرآن كاين الحفظية مركز وفي عنتي diintana way ku qurux badantay dadku inta wax qaybi karaya maskaxdooda soo jeeda in la xifdiyaana waa fiicantay laakiin sunnahaasi inuu ilowsiyo wixii waajibaadka ahaa waxa waajibaadka yani waxa laga yaabaa qof salaadu aanay u saxmaynin ama ahkaamtii salaada aan si fiican u garanaynin oo haddana quraanka xifdisan inaad aragto قصص كقاركود هذا ندين كورموا يابل هيدا ما دام دقن كأنه يهين قف كان لجودة ده لين قرآن كان لقيبسيه قرآن كان لقيبسيه وهي كان ستعرور رقمك كلا أفكار كلا قاطي لكن والدك كعب سنة يا وصبتي أحد كاستمر لجيني قرآن كقيبي قف لو يدين يا قرآن كم شن يتبنش سبوا هيا إلى هي إنه جيرنا هنا نرمى سنة بكل دودي هذا قياس شن يتبنش سو قرآن حفظ السن marka la yiraahdo ilaahay jiritaankiisa ka warran intuu madaxa ruuxo oranaya there's no enough evidence taagan yani waayo mujtamaca la nool yaa keenay waxa kan meeshii lagu noolaa mujtamacii la noolaa quraanka wuxuu buu qaybin islaantan iyo odayan qaylinaya inuu qayladooda kaga nasto oo meesha geeyay marka warka soo koobo quraanka aan qaybno idin welihi quraanka qaybsiisa intaynu tuuro wax kale ku bedelo quraanka aan qaybno sidii u wadno laakiin aan diinta usuusha fahamna ugu yaraan qofku furuudul ayn wixii ku ahaa qof kasta ama caamaha ahaado ama waxa qof walba furuudul aynka waa inuu garanayo
qofka tijaaro ku jira waa inuu yaqaanaa maxaa xalaala maxaa xaraana ila isagaa doontay qofka salaad tukanaya waa inuu yaqaanaa maxay kuugu asaxaysaa maxay kaaga jabaysaa maxaa salaadii laga rabaa ila waa laga rabaa salaadii inuu tukadee qofkii zaka bixinaya waa inuu yaqaanaa zakadu maxay ku hagaagaysaa maxay kaaga qaldamaya qof kastoo muslim waa inuu yaqaanaa caqiidadiisa iyo si uu difaacan lahaa maanta dunida tan waxa jooga shayaatiinu linsi wal jinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhruf alqawli ghuruura shaytaamadii jinka iyo insigu waa isu habar wacdeen waxaanay heleen wax fudud oo wax la isugu sheego halkan aynu wada sideenno caruurtu haysato macallimiin aad u tiro badan baa ku jira macallimiin xaddiga dhaafay bilmalaayiin baa ku jira oo wax kala nooca dhiga qofkiina wuu daawanayaa haddaanu qofku tallaalayn oo waxaa wixii ka celin lahaa aanu haysanin dhib bay noqonaysaa marka sheekhu wuxuu kelmadda igu soo riixay umaan u malaynayaa inaynu isbaraarujinno ah qur-aanka inaynu xifdinaa waa fiicantahay cidina idinma laha qur-aanka xifdintiisa ku ceebaysantan cid idinma leh laakiin xifdigiisa wixii ka muhiimsanaa ayaa ku ceebaysanay hadaynu nahay soomaaliga oo waxaynu haysanaa ilmaha waalidku wuxuu ku odhaya 30 waan qaybsiiyey dee 30 waad qaybsiisay miyaad barta 30 midna macnaheeda ma yaqaano 30 wuu qaybsan yahay 114 korkuu ka hayaa laakiin midna ma yaqaano qur-aanku isagaa ku filan waxa laaliya wuxuu qofku u baahan yahay caqiida uu mulxid iskaga celiya isagaa ugu filan wuxuu ku cibaadaysta isagaa ugu filan dee waa waxyigii u weynaa nabi maxamed loo soo dhiibay wax walba isagaa ku filan laakiin waa goorma waa marka la fahmo haddii kale kuwii ilaahay qur-aanka ku ceebaynayo kale yuhuud maxaa lagu tilmaamay ximaar maxay sida asfaar ximaar kutub sida dee haddaad qur-aanka garanaynin oo aad xadka gaalnimadaba uu joogo qur-aankana uu sido miyaanu dameer kutub sida kasii liitay marka ayayna noqonin dameer kutub sida ee dad kutub sida aan noqono mu'min kutub sida aan noqono marka qur-aanka waa ku amaanan noocidin ku ceebayn mayso laakiin ziyaadaynu u baahannaye waynaynu fahamnaa siiba da'yarteenna waynaynu arkaanul iimaanka iyo arkaanul islaamka si fiican ugu dhignaa oo caqiidadiisii uu si wanaagsan u fahmaa si uu muslim toosan oo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wax walba ku toosan uu noqon kari lahaa صلى الله على محمد علماء wax ku darayana uu dhiibay جزاكم الله خير الجزاء علمada laga dhargi mahayo runtii kalimaadkooda hada waxay xoogaa wax yar baan noo haray aan badnayn su'aalo haduu ilaahay dr khadar aan weydiinayno insha Allah ta'ala mikrofoonka xaqina u soo wareejinayna hadda marka qofkii su'aal qaba ma aragtay ku soo dhawaado shakhsi dadka su'aalaha fiqiga ka wadaawo su'aalahan haddaan idin hormaraba oo aanu su'aashaan idin bilaabo waayii hore ama haddaba Soomaaliya way ka jirtaa xer iyo inuu maartay intee xereeyaan kutubta la barto Kenya waxaanu ku aragnay wax badan baa la akhriyaa saajid kasta duruus baa la akhriyaa haddii tafsiir noqoto haddii fiqi noqoto iyo haddii xadiis noqoto iyo dhinac kastaba waxa gudbahayaan arki mayso aflaxaya marka musiibada xagee ka socota bal arintaas bal baraarujina si marka dariiqada wax barashada weelkan dabada duleelo uu dhamaanayn qaabkee ugu sahlan oo weelka dabada looga tali karo oo wax barashadii ku nagaan karto dadku wax ku baran karaan taasfiqi ma sheekh abul aynayn waa arrin ijtimaaciya marka sheekhan u dhiibayaa balada sheekh Alas bal qodobka ijtimaaciga sheekh ama sheekh wadina ma ka idinka sheekh sheekhana sheekh balada wadaadadayna cilmi badan mana rabaan inay jawaabaan si la yeelaya waxbarashada waxa la yiraahdaa ardayga marka la dhaafo saddex shay oo muhiim ah jira saddexdaas shay haddii ay dadku si fiican u qabtaan waxbarashadu way hagaagaysaa saddexda shay ka ugu muhiimsaneen hadda tilmaamayna waa manhajiyatu tacliim qofku markuu wax baranayo cilmigu meel laga bilaabo
iyo qaab loo socdo buu leeyahay saxwadan dambe baraaruga ah cilmigoodu meel kama bilaabmeen ninba halku ka soo gaadhaa buu ka bilaabay waxaad arkaysaa nin hadda bukhaari dhiganaya berritaad arkaysaa isagoo 40 ka dhiganaya xagee wax iska weydaarteen kii bukhaariga dhiganaya ma 40 ku soo celiyay dhibtu waxa weeyaan manhajiyatu tacliim bayna raacinin marka waxa weeyaan masaajidkaana waxa lagu akhrinaya tirmidi kana bukhaari lagu akhrinaya kana manhaj baa la akhrinaya raga dhiganayana mustawaha male cidi ka soo bixi mayso markaa waxay noqonayaan odayadii Soomaaliyeed cilmi dhigood ka qaadan jiray waxana fahmi jiray cilmi dhigoodka wixii uu ka helo laakiin ninka talibul ilmi raba waynu manhajiyo uu raacaya wayna jirtaa meel laga bilaabo fanni kasta iyo meel ku intoonaya waynu jiraa haddaad istiraahdo adigu mood maskax badan tahay xagga u sarreysaba kaga kaalay waxba baran weysid kutubta magacyadooda iyo waxaas uma baranaysaa uma nooranaysaa in kitaabkii la soo qaado ay dhowr xaashiyood ka dhigtay midnaba aan itqaanin marka haddii la rabo in طلاب العلم la soo saaro wacdigu waa gaar iyo dadka wuxuu sheegayso laakiin haddii la rabo in طلاب العلم la soo saaro waa inuu jiraa manhajiya waa waxa afgaaleedku odhan jireen curriculum ama syllabus wax la raacayo oo kala dambeeya waa inuu jiraa fiqi meel baa laga bilaabaa meel baa la geeyaa naxwo meel baa laga bilaabaa meel baa la geeyaa usul fiqi meel baa laga bilaabaa meel baa la geeyaa fanni kastaba wuxuu leeyahay silsila kutubta yar yar مثلا ee bilowga laba shay baa ugu muhiimsan oo laga faa'iido bay culimadu yiraahdaan mid waa mustalahatul qawm fannigan aad bilaabi doontaa eray bixinta dhexdiisa ku jirta waayo kitaab karoon ma akhrisan kartid haddaanad mustalahooda garanaynin waxaana ay ku hadlayaan haddaanad garanaynin waa kugu adagtay inaad adigu mutaalaca wax ku fahamto marka ugu horeyn intaad wax mutaalacayn waa inaad garan kartaa qowmkan aad kutubtooda akhriyayso mustalahaadka isticmaalaan naxwaad baranaysaa توينت مصطلحات كان فعلية فاعلية مفعولية وحن الآخرين ومصطلحات قومية هي وباب كودون لو قلت كانت ملك لك هلين وين دورتها كلا بعدنا وحيد هذان إن التصور كهيسته مادد وحي كهذاش هلاقيها بالنحو مركز دولة كتاب كاير نحوي تضبيط طبعا بابين وكسم يسي هلاقيها بكوي إننا تضبيط طبعا كانوا قلتكتو لكن ما حيكون قال زي ويكلا فهسي ninka dhiganaya ajruumiye sheekha dhigaya iyo ardaygu waa inay isla fahmaan maxaa ajruumiye looga bilaabaya sheekha dhigaya hadduu ajruumiye sida alfiyada u sharxo dadka waxba uma kordhin inuu aqoon-yahan yahay unbuu u sheegay waayo ardaygu wuxuu odhanayaa waxaa balballaadhan haddaanad sheegi karayn hadhow qaacido kasta 100 ka saaraysa haddaanad soo baxaynin wuxuu qaadanayaa bahalkan naxwaa lamana baran karo adiguna ma dhigi karaysid waa wax adag marka waa isticraad alcadalaat bay yidhahdaan sheekhu xooggiisa ku tusay uun sheekhii ajruumiyaha qoray isba waa awoodi karaya mid ka weyn inuu qoro kan mid dhaamo ka roon inuu qoro laakiin maxaa ajruumiye loogu soo koobsaday waxa loogu soo koobsaday qofkan bidaayada inaan la wareerine usuusha loo dhigo وأصول نحو وفهمه ككحجة وساوسي فهمه كتبتن محل تربدي إن مصطلحات كوكوسون نقضان تكرار كوكوسون نقضان إتقان كامركا إيمانية قرآن قرما تحفظ ده مركز كوعل على لسان حفظ ده دي كلمة حفظيس قف لي فاتحة إلا بين ماركتين الله صحيه وما يا فاتحة وين ودنا كوعل علينا علمي مركا تكرار كاسوه كتبت يرى ترى بدن لا يسكت دبا تحاني اسكو wax isku dhadhow ku qoran yiin waa takraar la rabo inaad ugu sugto marka waxaan ku soo koobaya manhajiyatu tacliim weyn ay jirtaa oo طلاب العلم masaajidii hore muslimiinta kuraasi baa jirtay kuraasida saariyadaha kursi walba nin sheekha fadhiisan jiray mid walba fan iyo funuun baa lagu akhrin jiray qofku waxba iskama soo wada mari jirin meel baa loo tilmaami jiray inuu halkaa ka soo bilaabo xagaa ka soo bilow nimankan marootaanta la yidhaahdayo 12 geed bay fadhiistaan adigoo aan 10 geeda hore soo marin geedka 12aad laguma ogola waxa weeyaan kaa soo mar horta markaasaad kan iman kartaa marka anigu waxaan isleeyahay waxa ugu weyn culimo wax dhigi kartaa waa joogtaa arday fahmadoodu fiicantay waa la helayaa waxa ugu weyn waxaan isleeyahay waa syllabuska labada kale mid waa macallin
أما موجه كشيء أما مشرف كشيء أما ومقعيون معلمين تا إلا كقرآن كالتلقين كقوة إلا كجامعة وحشرافين ومعلنون معلنين لهلو فني قديك كرا كلا بعدنا ووقت جوان إن لهلو وكتاب ما أنت نلا دقة يبرينا شوك سنة هي بيشد دمنا وحلا قديك يا مرنا أدو قد سفر يسو مرنا وصار نقنا يارده كاسنا كتاب نقن ماي وين وحنا نقضى واحد وقت كنت لقى شيء وشوكتا وقف قانو مقنانا إنه هدو حانو صاد درسي وكسر عشانيو ودرسي كمرك الله دكتو قف قو فريسنا يا أما هالنقاشو أما مد معيدها كسير دقيستو أما يسوق كتبتي كلها كلها نقضى وسوى ضيو وينو تشيرا وقت وقف كنت لقى لي هدي مرك عرضك صد 11 شيء له معلمك وقت كانوا اختصارية مغاليق ذنا وفرة سوء الفهم جنا وكائل عليها معلمكم وواحد أدوكو 3 ساعات كقاعدان الله هنا بحث إذا معلمكم نص ساعة بكو شيء مركا 3 ساعات كليئة وحكفي عنه كوب خامية وقتي معلم نص ساعة كوسية سوء الفهم جنا وكائل علينا يا أرد بس برضه وحكو قرآن مسألة قرآن وحكى له قريابة كتاب آخر مسألة ويسكت بالرجيسة سيده وقريت مركا سوء فهم كود عدنا وكائل علينا يا كصدحنا مغالق دو كفرية ما لا أدق باشرو إن لو ساعد مويانا يكو أتكانش كمعلمكو وقتي وكو كوبيا وحين وكو فرفرية تايمين كنا وين أد وقت جوان أد وحبرات تاجره ساعد نص ساعة وحدونا هالنقطة درس كا وقت جوان أد كهب سامين that's why جامعة سكول وحكة استوى تايمين بولي وح بلا تايم مشرا أردادو مركا هدو وحي للربي هدي نقوم ويان سيدا شيخ وشاقي أولي هاي إن والله وضا ونو وحي صباحينا وحي نقوم وقول هذا ورشدو والله صوا وضا على أبتيدا حقا ودن بيساوا حفردية وحي هذا برودكت كنترول وحي ورشدو صوا صارت على تشيكريا مواصفات كي لغير ربي ملي وحي أن لهينا مو والله تورا أما دي لو عليا وحلا هذا السيستم كيما دردن كيما له وحن بس ولا كنتروليا معلمكم مركو واحد دقة مسيلة بس القاتة وحكى الوضع هذا وحلا قيمة يا برودكت كصباحي قفك إنه ربني مية هاي هدون نقوم وايو أرتجا مركا لقي ما تصدق حدا ما مدو حكى قلدني مرتنا كسال الله سمايا مركا وحويان أرتجا هدون نقوم وايو قفك إنه ربني وين ندوب قلنا قلنا ما منهج كغلطان أينو رجعينه ما معلم كتريننج وباهان ولا الربا سكولة ده حكى ما يدك معلمين ليدا تريننج بالودر هوا وحيل الربا يسوي سعر كريوه المركا معلم كديب له ترين جريه ما وقت جا وحكى بدله وهذا كيسا جامعة فرسنا لقوا قاعدين تشيلوا السوير يو صدق لقى صدق حيدو لكردي وحويان برودكت كان هاي وحي الربين مركا وحلا ليه وقت جا وحكى بدله صدق ده مركا وحكى بدله كرنا ده مركا نمركي هوري أديك سني لكن هذا ما قرأنا سلوا قيمة يو أرضي كان وحلو شوي هذا أنا وحنا نقولين سلوا قيمة يلا قرن معي أنا من هجية تبغى نقول السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله الجزاء وآد بي واضح وتهاي وقت قد وجب هل سؤال قفك قبا أو علص سؤال علص بالربا أو معنا بدن كنت أو نكو جب إنه فقه إن شاء الله تعالى سؤال فقه واي أو كسابسن noocyada dalaaqa sidii khulco iyo fasakh nikaax iyo dalaaq bayn dalaaq rajci meelahaas wax yar bal faahfaahin fiican naga sii jazakallahu khair barakallahu fiikum sheekh hadii hal mar qofku uu dalaaqo uu soo ceshan karaa inta ciidada ku jirto waan ku furay uu yiraahdo haddana hadduu mar labaad waan ku furay yiraahdo haddana uu soo ceshan karaya waa hadduu gabadha la aqal galay ama aan xaaska mid uu la aqal galay haday ahayd oo dalqad uu ku furo intaana ciidada ka dhamaanin buu soo ceshan karaa hadduu haddana mar labaad furo uu soo ceshan karaya hadduu mar saddexaad furana ma soo ceshan karayo haddii aanu marka horeba la aqal gelin la aqalku waxaan u jeednaa yacni jimaac ama galma kamay dhex dhicin deetana wuu furay taasi ma soo ceshan karo hadday saddexdii dalqadoodba ka dhammaadeenna ma soo ceshan karo waxaan filayaa intaas inay inoo xalaalinayso salaadii insha allahu tacaala aynu tukanaad jazaakum allahu khayr ya sheekh su'aasha li fasaxanigi ayada lafteeda ma rabaa ku dhex jirto allah idin barka ma su'aasha watan ana wada su'aasha jawaab
جواب الرجل طيب لا الشيخ الله يبارك وما يوصلون إذا وحدير ما أيضا والله لا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مصيا ما إن جماع دعا ضروري مياه mise qofka haddii ciniinahaa iyo qoftii waxba aysan samayn oo muddo isla noolaayeen sanad iskula noolaayeen guriga cadam almasigi wuu soo geli jazaaka allah khayran inaad noo tafsiilisid baan u baahanay gurigaa wada gel wax wallahi may waaba wallahi dawshu adkaat tiimsan waxaan islaa tukataan laakiin malaha mar walba caqabad baad salaadii u dhigaysaan sheekhuna dee masaladuna way u baxsan tahay fiqi fara badan oo aanan hayn buu u hayaa laakiin bal haddana dee ma garanayo kolley maqsadka ka dambeeye wuxuun baan ka odhanayaa insha allah masigaasi culammadeenna shaaficiyadu waxay ku fasireen jimaac marka haddii aanay galma dhicin sanadaba ha wada noolaadaane halkaas wax ciddo ah oo gabadhaasi ka waajibaysaa ma jirto haddii uu dalaaqo mana soo ceshan karo ama sanad ha wada joogaan ama wax ka badan ha wada joogaan ama ha isla gaar noqdaan ama yaana isla gaar noqon haddii ay iyadiyo isagii isla qiraan in aan wax jimaacihi aanu dhicin xaaladda iyada ah gabadhaa ciddo lagu yeelan maayo haddii iyadu ay tiraahdo jimaac baa dhacay isaguna uu diidana iyaduna waa saas oo kale oo iyadana ma waajibayso ciddo iyo soo ceshitoona ma jirayaan haddii iyadu ay tiraahdo ama isagu uu yidhaahdo jimaac wuu dhacayna dee waa la eegayo haddii ay weli bikir tahay warkeedaa socon haddii aanay bikir ahayna waxay shaaficiyadu leeyihiin hadduu isagu yidhaahdo jimaac ma jiro hadduu isagu yidhaahdo jimaac baa dhacay hadduu yidhaahdo warkiisaa soconaya oo markaa inuu jimaac dhacay baa laga soo qaadayaa bay leeyihiin kolley waa tafaasiil aydaan iminka dee laga yaabo dadku inaanay saa ku qabanin kolba dhacdadii dhacdo un fatwo marka la leeyahay maha cashar waa dhacdo taagan oo la leeyahay arrinta saa iyo saas maxaa laga yeelaya markay dhacdadii dee qaababkan mid ahaan bay u dhacaysaa qaabkay u dhacday unbaa markaa la xukumi doonaa insha allahu tacaala جزاكم الله خير الجزاء علماء إلهي هذه بركة بارك الله فيكم جزاكم الله خير علمي ولا جمد درجات بقيمة بدنيا هي هالقصة on مال كأخري وعلمي قيمة وليه هي مادة الدنيا ذا قيمة حميد هذا بان ربائنا كسوق بقى شعب دوها بان وديبها إن شاء الله تعالى نين خبازها وروتيلها ونعقون دين اللهين با dhaqaalo badan buu ka sameeyay rootigii shaqadiisana waa rootigaas wey meelaha cilmiga iyo nadawaadka iyo niqaashku ka jira yuu tegi mar allaale markuu tago mar allaale markii kelimadii ku soo gaadho asaga la wareegi cilmigana sheeganaysaan iyo waxaan sheegaysaan maxay tahay haddiina hal shilin bayna bixin karin cilmigiina muxuu sheegi muu dhiho wadaadadii buu madaxa ka garaacay maalinka dambe war ninkan khabaaska seen iska yeelaa nafti buu naga qabtee wadaadaya maanta dhan hebel baa kitaab hebel baan xifdiyay iyo hebel kaalay misaajid baan dhisaynaa hal shilin ma bixinaysaan buu dhihi annagaad nagu soo riixaysaa maalinka dambe wadaad khabiir ah oo faqiiha baa loo sheegay wuxuu yidhi majliskaas anigaa iman doonaya aniga igu soo aadiyey mar allaa markuu mikrofoonka uu ka bogo aniga igu soo wareejiyo yidhi markuu sidiisii uu baabulkacsaday ayuu wadaadkii mikrofoonka loo dhaw hal su-aal baan ku weydiin buu yidhi imaam maalik ma taqaanaa buu yidhi haa buu yidhi أبو حنيفة ما تقنها إمام الشافعي ما مقشها أحمد بن حنبل ما مقشها ولقى ما عرفت ما عرق بوش وقت يقول إمام مالك يا إمام ما عرفت أحمد يا إمام الشافعي خبازين تي روتي دوبي جرت هل حب ما كقرن بوش ما هل حب كما قرن هيو ملايين بشوفتي ولو خبز دوبي جرين بوش وتشرين هاي لماذا أقرن ويدي وأيجا أو كمان هذا حساب
waxaad wadatay inuu saqiimo lahayn saa ku ogow adiga berri haddaad dhimat cidda ma ku sheegi malo waa lagu kala tegay dib dambe majlis umuusa imaani baa ninki marka baaraka allahu fiikum hadda sheekh cabdiwahaab baan kusoo dhaweynaya inuu noo soo gabagabay baaraka allahu fiikum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها الإخوة والأخوات ولا مركور الله ما هتسكلا مرهوري مردن بابا اللي مسلمين نقد جاي نعمدا وين وإيمان كان وقال ديستي نوافجي إنان مجلس كانوا كلا سجون معنا علماء النكفة إذا يسنو الله ما هتسكله مركل بعد وحنو ما علينا حقيقة الشيخ محمد فضيلة الشيخ محمد عثمان علسو محايا لي رنتي أرترين كستي كديس أهيد وفد أنا السجاد وقامني علماء أنا دوركم بأنو رئيس خبر كيسة رجع كود بوحيلا علماء ما حكون عيوا إعلان كود ولا صوت ضاهن إعلان كود متأخر marka culimadu xalay un bay yimaadeen waa iska daalanaayeen maanta annaga un bayna soo gaartay galinkii hore weli duhurada markii ku dhaweyd runtii waxaan dhihi karnaa sheekhu ma hadda aan u celinayo waxay ku salaysan tahay mar weeye mubaadarada sheekh khadir xasan axmed inuu kenya yimaado oo kitaabka dowladda aad aragteen lagu akhriyo oo intaasoo culamaa ka faa'iidaysato oo intaasoo madaxa iyo intaasoo ummada ay isugu timaado markii la daahfurayey وحواي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك وصاروا السجا سدا عن مقلني السجا اسكالها مبادرة داس ثم مبادرة هذا من باسل وكينا علماء دواتان وصعدوا واي وإن أركتان عاو وتكفى ذي ستان السجا الصواب وها تعالى سبحانه وتعالى وعليه أجر كذا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك وصاروا مرة بعض علماء هم علينا يقول سفرة إن شيخ خضر إيه شيخ مصطفى سوى من أهل منباس وحنا مالنا سدح جور كل واد ونو يمد لكن شيخ عصب وماشى إنه صاركو شيخ مرافق وصار رعي مركا وحواي علماء السنين يجوا مرتئة أو لبا فيليا مقالة إن آثارت هذه سو شيخ محمد عثمان على سو عاصمة المسلمين تجيس كأفريقيا وحي هيد ومنباسة قف كيماد كينيا أو لبا علماء إن آثارتي يا معالمتي مسلمين تا أي كتجان حال كن يلو بقول السنة كل وقت بالمشان سلامكم حصوق لي عهدي عبد الملك ابن مروان لامو يا بيت ماشي ده مركي كسوق لين نك اللي يجري سعيد يا سلمان الجلدي وحي هايد لحدا يأفرتي هجرة لحدا يأفرتي هجرة وإسلام كين سوق وكنت واحد كدم بي وكفى فيه وكسي فيه ما أنا دايرين إسلام كمركي مارك لجلوري أود لجلوري استعمار إنجليز وكلوري مارك آثار بدن با مدة أنت لك معالم بدن بلغت تجي مرك قف مسلم كأنه صاركو أو عنده كسوق هذا وحوي ومهم جدا واحد لكن واحد كدم بيش محمد اسمه على الصباح شيء حالة ضمان مسلمين تكوست جاي يكسو جاي أنا جيس أفريقيا عندها خاصة إن عنا كينيا تنزانيا إلى موزمبيق وحالة runtii aad iyo aad maart u hooseysa waay oo u liidata marka waxaan leenahay horta hore jazaakum allah khayr culimada noo timid iyo fursad aad nasiisaan waad ku mahadsantihiin sheekha wuxuu kale ku mahadsan yahay sheekh Usmaan Maxamed Ismaaciil Sow caawa hadiyad iyo risaalo iyo fariin uu noo soo gudbiyey oo kitaabka sheekha Hidayatul Mustarshid fi nadm Bidayatul Mujtahid oo koobay 4 madhab iyo madaahib kalaba وحوايا ونص وكوبا ونشر حيث لو قف هذه سنكرو يوتيوب كي فيسبوك يمالها الجلية مساجد النورين والشيخ وجوه مركز الشيخ محمد نانو هذا الرجي وحوايا تضبط بيت كلمات كودي استثمارات بالله كودي أنا سلج جوجني حجاز أنا سلج جوجني مكة جدة أنا سلج جوجني أيوة هاي أنت وحكي الدم بين دعوة ده كين سلج جوجني أنت كدم بيه وده فرطن سنة كبدن أنا رنتي زملاء هين عموما waxaan leeyahay kitaabkaas oo kitaab aad u qiimo badan dad badan baa runtii kala socday maaragtay si live ula socday haddana waxaan isleeyahay insha allahu tacaala waxaan sheekha kitaabka alifay doctor Khadir Xasan Axmed waxaan leenahay inuu kitaabkaas
sidaan kuleytaba la soconno gacantaad ku haysaa insha allahu tacaala in la soo dedejiyo oo weliba anugu waxaan iqtiraaxi lahaa kitaabkaas in jaamacaadka aan gacanta ku hayno ama Soomaaliya iyo Somaliland iyo ku yaalaan ama Kenya nafteeda jaamacad baan ku haynaa ilaa 3-4 jaamacad baan ku haynaa in muqarrar looga dhigo in muqarrar ardada looga dhigo 2440 page soo maaha sanadkiiba waa 600 oo bayd waa sanadkiiba 600 oo bayd 4 sano 2400 saas ku dhamaanaya muujeeda annaga inaan maaragtay rag tijaara in la helo naftooda oo kitaabkii tabceeya oo hatta jaamacaadka maktabaadka waaweyn oo jaamacaadka iyo maktabaadka annaga maktabad weyn baan halkan ku haynaa hoos oo lil mutaalaca subaxii sida loo furo 3 saac ilaa habeenkii cisho way furantaa maktabaadkaas oo kalena waxaa loo hadiyeynayaa 20 iyo 30 iyo baa lagu siinayaa maaragtay hadiyad ahaan loo siinayaa marka dambe kitaabka waa la iibsanayaa makaatibta laga iibsanayaa marka kitaabka annaga haddaan nahay dadkii Soomaalida ahaa inaan kitaabkii aan dhaqan gelino hirgelino waxaan kaloo idiin sheegayaa runtii waa taariikh cusub oo qorantay xagga ta'liifka maadada noocaan oo kale ah in kitaab fiqi ah oo ala xajmi maaragtay bidaayat mujtahid oo kale ah nadmi loo bedelo waxa waaye Shaam iyo Masar iyo Yemen iyo Andalus iyo Shimaal Afriqiya iyo Ciraaq iyo dhulkaas lagu yaqaan geeska Afrika culimo ka soo jeeda oo maaragtay kitaab fiqi ah oo noocaan oo kale ah nadmi ka dhigi karta runtii waxa waaye alxamdulillah waxa waaye waa taariikh cusub oo Soomaalida ma garanaysa ama dadkiisa shucuubta geeska Afrika u bilaabatay dad badan way dhiiran doonaan insha Allah taala Soomaalida waxa waaye dad cajam baan nahay waa la baqaa qofkii asoo awood u leh Soomaalida arkaysa ayagoo maaragtay alfiya xifdisan ma garanaysa laamt al-af'aalka xifdisan kutubiga maaragtay fiqiga xifdisan haddana isku dayimaay risaalo yar oo fiqi ah inuu qoro ma isku dayiyo makaatibtaas wax ka soo gadanaya maanta oo dhan qofkii oo faqiih marka tan waxaan qabaa aniga waxay dhiirinaysaa talabatul cilmiga kuwa joogay kuwa imaan doonaba marka waxaan leenahay kitaabkaas ha laga faa'iideysto kitaabkaasna makaatibta la iibinayna ha la keeno makaatibta kalena waxa loo hadiyeeyo Sheekh Maxamed Usmaan Cali Suuf waxaan faraynaa adiga Nairobi ku noqonaysaa insha Allah anaguna Nairobi imaan doonaa wuxuu u baahan yahay Kenya in jalsa khaas inta ka yeeshaan wayna dhici kartaa inay ka yeeshaan kitaabka sida loo nashrin lahaa iyo maaragtay sida muqarrar looga dhigi lahaa dadkeena hadda tacliimta xagga akademiga gacanta ku haya meelaha kala duwan waxaan jeclahay inay arrintaas u istaagaan wax ka qabtaan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa in miisaanka xasanaadka sheekh doctorka u saaro sacyigaas socdana ilaahay inuu guuleeyo najixiyo aan Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa sidoo kale Allah waxaan weydiisanaynaa in dadka aan ka dhalanay oo muslimiinta oo Soomaalida ah sida loo sheegay quraankii waa ku fiicanahay xifdigiisii laakiin quraankii dhaqankiisii waa ku liidanaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku dhaqmo inuu naga dhigo in dhibaatada uu naga saaro in dadka muslimiinta sida maartay Falastiin iyo Gaza dhibaatada maanta haysata in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka saaro dad muslimiin aan nahay meel ka fog baan joognaa musaafiriin baan ugu jirta ducada Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa inuu naga aqbalo inuu ducada naga aqbalo Allahumma amiin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين